hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya NISA ayaa waxa iyadu ay sheegtay inay heshay xog ku aadan dalka ka dambeeyay qaraxii Sabtidii ka dhacay magaalada Muqdisho. Nabad sugidda Soomaaliya waxa ay sheegtay in baaritaano ay socdaan isla markaana madaxda dowladda Soomaaliya ay la wadaageen xogtan dibna ay ka shaacin doonaan dalka ka dambeeyay qaraxii Sabtidii lagu qabtay ka dhacay Ex-Control Afgooye Muqdisho. War qoraal ah oo lagu daabacay barta Twitter-ka ee hay-adda nabad sugidda Soomaaliya ayaa waxa uu qornaa sidan: waxaan madaxda qaranka u gudbinay warbixin bilow ah oo tilmaamaysa in xasuuqii shacabka Soomaaliyeed loogu geystay Muqdisho 28 Diseembar 2019 oo qorsheyntiisa lahaa dal shisheeye. Baaritaan ayaa socda si loo dhameystiro baaritaankaas waxaan la kaashan doonaa hay'adaha sirdoonka ee caalamka ayaa lagu yiri warka lagu daabacay barta Twitter-ka ee hay'adda NISA. Dhanka kale wargeysyada ka soo baxa dalka Turkiga ayaa maanta waxay bogagooda hore ku qoreen in ay heleen xog muujinaya in qaraxii 28 bishan ka dhacay Ex-Control Afgooye ee Muqdisho uu ka dambeeyay dalka Imaaraadka Carabta oo siyaasad ahaan ka soo horjeeda howlaha dowladda Turkiga oo ay ka wado dalka Soomaaliya iyo dalal kale oo caalamka ku yaala. wargeyska Yani Zavag ee ka soo baxa dalka Turkiga ayaa waxa isagu maanta bogiisa hore ku qoray in xog la helay ay muujinayso in dhaxal sugaha dalka Imaaraadka Mohammed bin Salman uu lahaa amarka qaraxii Sabtidii Muqdisho ka dhacay ka oo ay ku geeriyoodeen in ka badan 100 ruux sidoo kalena 150 kale iyagu ay ku dhaawacmeen sidoo kalena ay ku jireen muwaadiniin Turki ah kuwaasi oo dhisay wada laami ah halkaasi laga dhisayo. wargeysku waxa uu sheegay in bartilmaameedku uu ahaa shaqaale Turki ah oo dhisaya wadada. waxa wargeysku sheegay in qaraxaasi lagu soo beegay isla maalintii dowladda Turkigu ay isku diyaarinaysay taageero ciidan oo ay siiso dowladda caalamku aqoonsan yahay ee Tripoli. xogtan waxay sheegeen in Amiir Mohammed bin Salman uu baxshay amarka qaraxii xoogan ee ka dhacay Ex-Control ee Muqdisho. wargeysku waxa uu kaloo sheegay in cadeymaha uu hayay ka mid yihiin baaritaano la sameeyay xiriiro kalaba in lagu ogaaday qabanqaabada qaraxaas in ay ka dambeysay dowladda Imaaraadka Carabta si gaar ah amarka uu bixiyay dhaxal sugaha wadankaas Mohammed bin Salman. ujeedka qaraxa waxa lagu sheegay in uu ahaa in la qalqal geliyo howlaha taageero ee Turkiga oo ka wada gudaha Soomaaliya iyo sidoo kale Liibiya. sidoo kale wargeyska oo soo xiganaya ila xukuumadda Ankara ka tirsan ayaa waxa iyagu sheegeen in hoggaanka Turkiga ay aaminsan yihiin in dowladda Imaaraadku ay ka dambeysay qaraxii 28 ka dhacay magaalada Muqdisho. qaraxii Sabtidii ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa la sheegay in ay ku geeriyoodeen in ka badan 100 ruux sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 150 kale. dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa waxa ku jiray shaqaale Turki ah kuwaasi oo dhisay wada halka marta. warka ka soo baxay hay'adda nabad sugidda Soomaaliya NISA iyo midka ka soo baxay wargeyska Turkiga Yani Zavag ayaa mid xasaasi ah iyadoo dowladda Soomaaliya lagu sugayo in baaritaan kadib ay soo bandhigto xogta iyaduna u soo baxday. ilaa hadda ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda qaraxii ka dhacay iskooska Ex-Control Afgooye ee magaalada Muqdisho. inta badan dagaalyahanada Al-Shabaab ee ka dagaalama Soomaaliya ayaa lagu eedeeyaa qaraxida ka dhacay Muqdisho balse weli iyagu qudhoodu ma aysan sheegin mas'uuliyadda qaraxan taasi oo tuhun kala dhalin karta.